madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa culimada deegaanka kula dardaarmay in laga digtoonaado shakhsiyaadka gabaadka ka dhiganaya diinta ee isku dayaya inay faafiyaan fikirada xagjirnimada madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar oo ka qayb galay furitaanka tababarka culimada deegaanka uga socda magaalada Jigjiga oo ay soo diyaarisay jaamacadda Bunyaan ee saldhigeedu yahay Indonesia oo kaashanayso golaha sare arrimaha islaamka federaalka oo si guud uga socda dalka ayaa culimada kula dardaarmay in laga digtoonaado fikirada khaldan ee xagjirnimada lagana shaqeeyo wada noolaanshaha ummadda iyo xasilinta amniga. haddaba Sheekh Axmed Maxamed gudoomiyaha golaha sare arrimaha islaamka ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaan wax ka weydiinay tababarkan. waxaan qabanaynaa dowro ama tababar loogu magac daray barnaamijkii indhaha iyo udug oo loo qabanhayo aimada iyo dadka quraanka yaqaano dad 80 qof aan hadda target garaysanay seminaarka waxaa gacan naga siinayo oo bixinayo jaamacadda loo yaqaan jaamacatul Bunyaan oo fadhigeedu yahay Indonesia. jaamacadaas marka professor fara badan oo macallimiin ah oo Arab ah oo wadamo kala duwan ka yimid ayaa casharadaas bixinaya dulaa maadeen. waxaan rajaynayaa maartay inay ka faa'iideystaan ardayda faraha badan ee loo soo xareeyay inay tababarkan qaataan aimada oo dadka masaajidda tujiya iyo in loo yaqaano quraada manku xufaada ee quraanka xafisana macallimiinta iskuulada dugsiyada dhiga. marka labada group oo isku jiro ayaa hadda u socda casharka saad arkayseen waxa weeyaan saad artay group loo fariisiyo ujeedka laga leeyahay waxa weeyaan in ay tababaryaal si noqdaan hadda kuwan ayaga laftooda waxay qaataan 10 ilaa 6 maalmood buu socon doona maanta bilowday ilaa 6 bari buu socon doona 10 fara badan oo mudakaraad iyo qaybin fara badan baa la siin doona. 10 ay halka qaataan ayay si wada waxa loogu talagalay ujeedka laga leeyahay waxa weeyaan inuu dadkeena uu fahmo horta koow wada noolaashaha culimada dhexdeeda lafteeda oo maartay midmadow iyo waxyaalo inta badan ku dhex jiro in midmadow ka dhaxbaxo isfahmaan shacabka siday akhlaaqda wanaagsan iyo dabeecadda wanaagsan oo fidin lahaayeen loo kala qoqobin waxyaalahaas inta badan iyo culays ka saaraya. marka waa duruus faa'iido leh oo loogu talagalay dadka inay walaalo ka dhigto oo culimada lafteeda isku xidho. marka faa'iidada laga leeyahay inta weeye iyo quraankeena oo kor loo qaado oo wuxuu u yahay la ogaado tadabbur waxa la yiraahdo lagu sameeyo inaan iska akhrinin wuxuu yahay macnihiisa dhabta ee la qaato taas way marka ujeedka laga leeyahay. marka waxaan rajaynayaa in saaka uu si fiican looga faa'iideysan doono saaka bilowday 6 bari ugu socon doona.